sharci ah iyo zinaysi. qodobka lixaad ee ka hadlaya ku xadgudubka jinsiyeed faqradiisa koowaad ba waxa ku cad sidan: qof kasta wuxuu gelayaa faldambiyeed ku xadgudub jinsiyeed ah haddii uu ba faljinsiyeed la sameeyo ogolaansho la'aanta qof kasta oo kale. lagama reebin haddii uu nikaax ka dhaxeeyo labada qof sida uu tilmaamaya ereyga qof kasta. qodobka saddexaad oo lagu haysto sharciyeedkan waxa weeye ama qaanuunkan jinsiga oo shareecada ku khilaafsan yahay. qaanuunkan wuxuu u qeexay kufsiga sida ku qoran qodobkiisa afaraad faqradiisa koowaad a iyo ba. qof kasta wuxuu gelayaa faldambiyeed kufsi ah haddii uu si ulakac ah geliyo, haba yaraatee wax kasta ee la geliyo, daloolka xubinta taranka, futada ama xubinta taranka ee qof kale una adeegsada wax kasta ama xubin ka mid ah jirka iyadoo ba qofka kale uusan ogolayn waxgelinta. qof kasta oo gala faldambiyeedka ku xusan qodobkan waxaa lagu xukumayaa xabsi aan ka yarayn 10 sano kana badnayn 25 sano. haddaba qodobkan wuxuu ku muujinayaa kufsiga laba qof oo isku qabta nikaax sharci ah dhexdooda haddii ogolaansho la waayo